Ugur Sahin waa saynisyahan Jarmal ah oo dhakhtar ah kuna takhasusay la tacaalidda kansarka. Asalkiisu waa Turki, waalidkii asoo 4 jir ah ay la soo galeen Jarmalka oo ay isku dhiibeen. Aabihii warshad ku taala magaalada Cologne ayuu ka shaqayn jiray. Sahin waxa uu bartay culuumta caafimaadka oo ka qaatay shahaadadii ugu sareysay. 2002 ayay isguursadeen xaaskiisa Ozlem Tureci oo iyadana waalidkeed Soogalooti Turki ahaydne balse ku dhalatay iyada Jarmalka. Ozlem iyadana waa dhakhtarad sidii ninkeeda qaadatay shahaadadii ugu sareysa isla jaamacadii uu isagu ka qaatay. Waxa ayna baratay culuumta la xiriirta daaweynta kansarka. 2008 ayay go'aansadeen inay samaystaan shirkad iyaga u gaar ah oo ka shaqeysa soo saarista daawooyinka difaaca jirka ee lagu daaweeyo cudurrada faafa iyo kansarkaba. Shirkadooda waxaa lagu magacaabaa BioNTech, waxayna ka mid ahayd shirkadihii ku tartamayay soo saarista talaalka COVID-19. Saddexdii wajiba way ka soo gudbeen, waxayna ku dhawaaqeen inay talaalka ay diyaarisay 95% oo ciribtiraya fayraska corona. BioNTech oo soo saartay talaalkan ayaa ka sheekeynaysa shirkad Mareykan ah ee B-Sifir oo iyada dhaqaale iyo agabka talaalkan dunida lagu gaarsiinayo diyaarisay. Waddanka UK ayaa noqday dalkii ugu horeeyay ee ansixiyay in gudaha dalka laga isticmaalo talaalka BioNTech, asigoo dalbaday 50 milyan oo xabo, halka Mareykanka uu dalbaday 100 milyan oo xabo, uuna u sheegay inuu ilaa 500 milyan oo xabo oo dalbanayo. Japan ayaa sheegay inay dalbanayso 120 milyan oo xabo. Midowga Yurub ayaa dalbaday 300 milyan oo xabo. BioNTech waxay heshay maalgelin badan sanadkii hore gudihiisa. Midowga Yurub bandhiga maalgelinta ayaa siisay 50 milyan, halka shirkad Singapore laga leeyahay ee ku maalgelisay 150 milyan. Sidoo kale isla bandhiga Midowga Yurub ayaa deen ahaan u siisay 100 milyan. Waxaa gadmay shirarkii shirkaddan, taasoo ka saaciday Sahin inuu noqdo markii ugu horeysay bilyaneer. Maanta hantidiisu waa 5.2 bilyan, waxa uuna ka mid yahay dadka ugu hodansan Yurub. Xaaskiisu sidoo kale waxay noqotay bilyaneerad, waxa ayna qoyskaas ka mid noqdeen dadka ugu hodansan gudaha Jarmalka. Ganacsi ay faa'iido badan ka heleen, dad badan nafahooda badbaadiyeen ayay hindiseen. Waxaa la xusaa maalintay is arooseen maalinta xigtay in Ozlem ay isla laabka soo xaadirtay oo shaqada hore ka gashay. Sanad iyo bilooyin baa laga joogaa markii fayraska dunida ka dilaacay, asigoo ku dhacay dad ka badan 100 bilyan oo qof. Waxa uu nafta gooyay 2.5 bilyan oo qof, asigoo gaaray dal walba oo caalamka ah. Bilooyin ka hor ayaa markii ugu horeysay gudaha dalka UK laga bilaabay talaalka COVID-19 kadib markii dalabkii koowaad oo soo gaaray. Haweeney 90 jir ah oo la yiraahdo Margaret ayaa noqotay bukaankii ugu horeeyay ee talaalka hela. Soogalooti Turki ah awlaad ay dhaleen ayaa aqoontii ay ka heleen dalkii ay tageen ugu hindisay daawo malaayiin qof nafahooda badbaadinaysa. Ha is oran qaxooti baa tahay oo dunida rool kuma lihid. Jarmalku waxa uu ku faanayaa maanta in dadkiisu hindiseen daawada fayraska, shaqadii dunida iyo dadkii ku noolaa galaafatay.